kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal daawadayaal idilkiin meel walba aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan wararka ugu waaweynaa ee suuqa saaka kala iibsiga waxyaabaha ugu hadalhaynta badan maanta majalada lagu magacaabo gosobka ee BBC da magacyada ku xusan waa ciyaaryahan Ighalo van de Beek, Ronaldo, Kevin De Bruyne, Sterling iyo Harry Kane. waxyaabaha ugu waaweyn magacyadaas ayaana ku xusan ee maanta suuqa kala iibsiga. Manchester United ayaa markaan damacsan xidiga Nigeria weerarka ugu ciyaara ee ciyaaryahan Ighalo ayna rabtaa maadaama imka amaah ugu maqan naadiga reer Shiina ee Shanghai Shenhua waxay rabtaa in ay heshiis permanent ama heshiis joogto ah la gaarto ciyaaryahankan maadaama bandhig cajiib ah sameeyay isagoona 3 gool u dhaliyay kooxda Manchester United 60 milyan ayayna ku rabtaa inay kusoo qaadato ciyaaryahankan Premier League dib ugu soo celiso maadaama horyaalka waqti fiican uu la soo qaatay kooxaha Premier League ka ciyaara meel ayaana sheekadaasi qoraysa. waxyaabaha kale ugu weyn kooxda ka haraysa garoonka Old Trafford waxay sidoo kale rabtaa in la soo sixato ciyaaryahanka khadka dhexe kooxda Ajax Amsterdam Van de Beek. Real Madrid ayaa sidoo kale ciyaaryahankan ku khasaartay horaan xidiga u dhashay dalka Netherlands waxaana markaa Manchester United ay rabtaa maadaama Real Madrid ku khasaartay in mar kale Manchester United ay damaceeda u wiciso ciyaaryahanka reer Holland ee kooxda Ajax Amsterdam ninka lagu magacaabo Van de Beek ayaana u gacan hatay Marco ay ka soo dalka Isbaanishka ayaana sheekadaasi qoraysa. Juventus ayaa qorsheynaysa in xidiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo uu qandaraas cusub ay ka siixato 2 sano ilaa 2024 Tuto Sport ayaana sheekadaas qoraysa waxaana soo xiganaysa meel ayaana soo xiganaysa. waxyaabo kale ugu weyn waxaa kamid ah xidiga reer England kabtanka xulka England ee Tottenham Hotspur ciyaaryahan Harry Kane ayaa markaan la sheegayaa in uu aad ay xiiseynayaan labada kooxood ee Manchester United iyo Manchester City si lamid ah kooxda Juventus. Harry Kane tani markuu Jose Mourinho yimid kooxda waxaa laga dareemayay niyad oo garoonka oo ka qaaday kooxdiisa waxaana taasi ka sababtay kooxaha Premier League iyo kooxda Juventus inay soo dalbato adeega ciyaaryahankan waa dhibaato kale soo wajihi karta kooxda Jose Mourinho haddii Harry Kane ka tago United-ka ayaana rabtaa si lamid City in adiga Juventus. Tuto Sports waxayna soo xiganaysaa Express ayaana sheekadan si wada jira u daawacay. Manchester City ayaa markaan quudareynaysa horyaalka Premier League ciyaaryahanka oo ciyaara ciyaaryahankeeda Kevin De Bruyne iyo Raheem Sterling in qandaraas cusub ka siixato maadaama labadan ciyaaryahan ay u yihiin kuwa halbowla oo kooxda 30 jirka reer Belgium ee Kevin De Bruyne ayaana ciyaaryahan ugu caawinta badan kooxda Manchester City taas ayaana lagu sababay in uu heshiis cusub qalinka ugu duugi karo Sterling Raheem Sterling oo 25 jir oo u dhashay dalka England waxay damacsan tahay in heshiis cusub ay qalinka ugu duugato. waxyaabo kale ugu weyn Arsenal macalinkeeda Mikel Arteta ayaa aad u xiisan West Ham United ciyaaryahankeeda ee daafac ugu ciyaara Issa Diop 60 milyan ayaana lagu qiimeynayaa si lamid ah Manchester United ayaana aad u xiisanaysa ciyaaryahankaas iyo Chelsea Medro ayaana sheekadaasi qoraysa. Barcelona Manchester United Real Madrid waxay aad u xiisan ciyaaryahanka Fenerbahce u ciyaara ninka lagu Omar Riaz ayaana aad u xiisan 16 sano ayuu jiraa qura saddexdaas kooxood ayaana xiisan Express ayaana sheekadaasi qoraysa. waana wararka ugu weyn saaka ee laga qorayo suuqa kala iibsiga ee ciyaartoyda waana kuwa ugu xiisaha badnaa maadaama horyaalada xiran yihiin ciyaartoyda waxay markaan rabaan in qandaraas cusub qaarkood u kordhiyaan kuwana ay ka tagaan kooxooda kuwana ay kooxo kale